maalmaha nagu soo wajahan Soomaaliya xaraaradda siyaasadda ayaa tagi doonta fikta sare waxaa lagu loolami doonaa jagooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka 11 iyo tan madaxweynaha sanadkan ma kala xiisa badnaan doonaan tartamadu balse kan golaha shacabka oo ka kooban 275 xubnood ayaa noqonaya kan isha si weyn loogu hayo Soomaalidu waxa ay sanadkii 2000 iyo carta isku raaceen in wax lagu qaybsado saami qaybsiga 4.5 kaas oo ku jaango'an xilalka sare ee dalka taas oo mararka qaarkood muujisa sawir ah in ay bannaanka wax lagu soo qaybsaday haddana jagada madaxweynaha ee ah midda loogu tartanka badan yahay inta badan waxa ku loolama siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha daaroodka iyo hawiye labadii doorasho ee ka dhacay Muqdisho 2012 iyo 2017 waxaa jiray fikrado asaasmay oo ka soo maaxanayay dhinaca cidda xukunka joogta kuna wajahan cidda noqonaysa gudoomiyaha golaha shacabka waana hardan u dhaxeeya labada beelood ee isku qabsada inta badan jagada madaxweynaha 22ka shaki badan lagama qabo in aragtidan masraxa ay timaado taasoo dhadhan cusub u yeeli karta masraxiyadda siyaasadda 2012 Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo mar kale doonaya in loo doorto madaxweynaha ayaa sharaxay Allah u raxmade Professor Cali Khaliif Galeyr laakiin guuldarro ayaa ka soo gaartay markii beelaha Digil iyo Mirifle iyo daaroodku diideen qalad lagu sameeyo saami qaybsiga nidaamka 4.5 mar kale Janaayo 2017 madaxweyne Xasan Sheekh kooxdiisii ayaa sharaxday Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka soo jeeda Jubbaland qorshaha markan waxaa door weyn ka ciyaarayay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo damac ka lahaa jagada ra'iisul wasaaraha ama doonayay in shakhsi ka soo jeeda Digil iyo Mirifle markii ugu horeysay uu xil ku saabsan xagga fulinta ka qabta Soomaaliya Xidig isna waa uu guuldareysay qorshihiisu lagumana guulaysan isku daygii labaad ee ku wajahna in wax laga bedelo hanaanka kuraas qaybsiga siyaasadda Soomaalida markana isla kooxdii hore ee Professor Galeyr Allah u raxmade u qoonsaday hankiisa ayaa sababay in Xidigna daadku u qaado 2017 guuldaradii Xidig waxa ay soo waariday in doorashada guud ee Soomaaliya xilligaas wax badan ay iska bedeleen koox firfircoon ku jirtay loolan doorasho aan sahlanayn ayaa u kala dhantaalmay sida aan hore qorshaha loogu darsan hadda 2022 fiila Soomaaliya walow laga soo wariyay marar kala duwan inay qaadayso talaabo la mid ah damacyadii Shariif iyo Xasan Sheekh fursadna u haysato in hanka madaxtooyada ay la xambaaraan lafta gareen iyo Siciidani oo dana u gaara kale doorashada isku darka labada nin inay keeni karto in la hirgeliyo qorshahaas haddana koox aad ugu dhow dhanka fiila Soomaaliya waxay xaqiijinayaan in ajandahaas meesha laga saaray laba siyaabood awgood kow in la dhowro lana ilaaliyo awoodda kooxda xukunka joogta taasoo ka dhigaysa in rukumada ku midaysan sii joogista farmaajo ee xukunka la wada qanciyo lana qaato xal wada ogola waana in arrinta guddoonka loo dhaafo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo rag ka tirsan kooxda ololaha farmaajo ay kol hore u sii calaamadiyeen qabashada xilkaasi laba fashil ku yimaada isku day qorshahana waxa uu si fudud dhabaha ugu xaaraya in si dhab yar farmaajo u baneeyo madaxtooyada waana sababta in codadka koonfur galbeed ay qaadanayaan jiha cusub hogaamiye baarlamaan oo ka aragti duwan fiiladuna uu imaan doono guddoonka baarlamaanka taasina waxa ay keenaysaa in la kala dhantaal uu ku dhaco midowga farmaajo iyo Laftagareen maadaama codadkii iyo xilkii guddoonkaba laga qaatay marka laga taga labadaas sababood waxa jira mid aan si adag miradhal u ahayn waa in haddii la hirgeliyo qorshahan oo uu guulaysto ay masraxa doorashada isla imaanayaan dani iyo farmaajo taasina ay keeni karto midow xilli hore oo dhex maray dani iyo mucaaradka midowga musharaxiinta kuwaasoo tamartooda duldhigi doona Siciidani waana aragti aan aad u xooganayn in fiiladu waqtigan ku dhaqaajiso wax ka bedel habqaybsiga saamiga beelaha ah waa farsamo ka duwan sidii Shariif iyo Xasan ay u soo maamuleen guddoonkii hore ee baarlamaanka oo ku keentay cimri degdeg awoodeed iyo burbur siyaasadeed taas horseeday in ay xilka baneeyaan si isxiga korfeeyaasha siyaasadda Soomaalida ayaa rumaysan haddii farmaajo ka baaqsado talaabada ay sameeyeen labadii madaxweyne ee ka horeeyay waxa ay jeexi doontaa dhabo siyaasadeed oo laga leexday maadaama lagu guuldareysay in gudoomiye laga dhigo ruux aan ka soo jeedin ba iyo boqol ka hore taasoo natiijada santuuqa maalinta doorashada ka dhigaysa mid humbulan
balse haddii la qaado dhabbahaas waxaa la ogaan doonaa natiijada soo socota ee madaxweynenimada Soomaaliya. waa inaan maskaxda ku haynaa indhahana ku eegnaa dharaaraha dhow iyo karkarinta mawjado siyaasadeed oo ah kuloolanka awoodda ee dalka iyo dib u suuraynta tagtadii shalay. ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.